السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنال كمر كلا سود وواضح أدي هذا ومهتسنتهين مقالكم وحربا إن ندي كل وذاقه هويني دي مدحضة كاهيد أوركي فيدنا ورفيوجر العجيه فراها بدنا قبل كم من الصوت كل صدى إسلام كان اللي يراد ومسكح دي كده بيسي إلا عجها سيل الصدى أنت وده بدنا هذا الصومالي ده الدش اللي جس عريو أو بشي ماج سنة كي هراء لبضة كون يشاني لبعتن كدم بيلاجوها لي ayaa iyadoo xabsi ku jirta wareysigeedii ugu horeeyay bixisay haddaba maxay wareysigeedaas ku sheegtay ayaan rabaa inaan idin la wadaago dhinaca kale xawaaladaha gobolka Minnesota waraaqo ka soo baxay wasaaradda maaliyadda dowladda Mareykanka ayaa loo qaybiyay haddaba waraaqahaasi maxaa ku qoran Minnesota qaybta ay ka quseynayaan kawniyadana maxay yihiin sidoo kalena waan idin la wadaagaya balse marka hore soo dhawaada waxaan ogeyn kiiskii Fidina war future oo lacaga fara badan oo markii hore 250 milyan lagu sheegay laakiin hadda ilaa ay 300 milyan iyo ka badan la gaarsiinayo in lagu lunsaday oo loogu talagalay xilligii coronavirus-ka in caruurtu maadaama iskuulada ay ka joogeen dowladda federaalku in lagu quudiyo caruurtaasi oo lacagtaasina wasaaradda beeraha ee dowladda federaalku ay bixinaysay wasaaradda waxbarashadana loo soo marinayay ee gobolka Minnesota kadibna ururkaasi Fidina war future la siinayay isagana ururo fara badan oo application u soo dirsaday oo dhahaya caruur ayaan ku quudinaa meel hebel iyo meel hebel oo ka bacdina lacagahaasi siinayay lacagahaasina la lunsaday ilaa hadda 78 qof ayaa dambi lagu soo oogay ilaa iyo 6 kamidana waa la xukumay sidoo kale waxaa jirta 57 qofna inay dambigooda qirteen dadkaasi intooda badan waa Soomaali marka haweeneydan iyada ayaa madax ka ahayd ururka Fidina war future oo lacagahaasi dadka siinaya marka waxa la leeyahay waa maskaxdii ka dambeysay lacagtaasi intaasi la eg in la xado marka waa tii dambi lagu soo oogay kadibna la maxkamadeeyay horaantii sanadkii hore 7 dambi oo ku eedeysneed ayaa lagu helay in welina xabsi ay ku jirtaa oo lama xukumin haddaba marka wareysigeedii ugu horeeyay ayay bixisay ilaa iyo markii dambiga lagu helay qof xabsi ku jira inta badan inuu wareysi siiyo warbaahinta aad ayay dif u tahay marka telefishinka CBS News ayaa wareystay waxyaabaha la weydiiyay waxa kamid ahaa lacagtaasi faraha badan sidee ku ogaan wayseen in lacagtaasi ay meeshii saxda ahayd ku socoto iyo inaysan ku socon marka waxay tiri waxaan rajayn lahaa in dib loo celiyo isla markaana aan saxo qaladaadkayga oo aan qabto dambiyadaasi dhacayay laakiin waxay tiri hadda wax la qaban karo ma ahan waxaan rumaysanahay tiri in wax kasta oo awoodeyda aan sameeyay si barnaamijkaasi aan u ilaaliyo oo lacagahaasi intaasi la eg aan la xadin waxyaabaha sidoo kale ay sheegtay haweeneydan oo 45 jir ah waxa kamid ah in ay hadda wax kasta ay lumisay hadii ay arintan dambi ay ku lahaan lahayna ay dambigeeda qiran lahayd isla markaana familkeeda iyo caruurteedaba dhibaatada ay marsiisay aysan marsiisan marka waxay tiri dambigeyga ayaan qiran lahaa maxkamad ma aanan tageen oo dacwadaasi ma aanan ka qayb galeen dambina laygu mahaleen waxay tiri hadii aan ogahay inaan dambi leeyahay marka iyadu waxay leedahay wax dambi ah ma balahiba laakiin dambigay dusha ka saaraysa waan idin la wadaagaya waxay tiri anigu wax dambi ma aanan lahayn hadii aan dambi lahaan lahaa waxaan dhihi lahaa dambi ayaan leeyahay maxkamad maba isla gaarneenba oo maxkamad la ima saareen qoyskayga oo caruurteeda iyo familkaygana dhibaatada ay mareen ma aanan marsiiyeen haddaba iyadoo arrintaasi ka hadlaysay waxay tiri Absolutely not. I believe in accountability. If I had done this, I would have pled guilty. I wouldn't have gone to trial. I wouldn't have put my children and my family through what we've been through. I've lost everything. I wish I could go back and do things differently, stop things, catch things. At that point in time, I believed we were doing everything in our power to protect the program. haweeneydan marka waxa lagu xukumi karaa ilaa iyo 33 sano oo dambi ah markii maxkamadda la saaray marka waxa tii la ogaaday xitaa inay laaluush qaadanaysay lacaga dadka inay siinayso oo dhahaysay hadii lacagtaasi lagu abrifgaray aniga cake bag intaas oo lacag isi waxyaabaha soo idil maxkamaddu intii ay socotay waa tii laga hor sheegay marka iyadu hadda waxay eedda dusha ka saaraysaa mas'uuliyiinta gobolka Minnesota waxa kamid ah waxay leedahay anigu la xisaabtanka waan aaminsanahay laakiin waxa ay tiri in sababta mas'uuliyiinta gobolku ay u arki waayeen lacagaha intaasi la eg
maxay tahay waxaa jirta sanadkii 2021 in ay dacweysay gobolka kadib markii lacagaha la jaray gobolka musuqmaasuq ayuu arkay lacagihi ayay ka jareen waa ay dacweysay garsoore maxkamadeed ayaa marka u ogolaaday lacagtii in dib loogu soo fasaxo marka waxyaabaha ay ku andacoonaysay waxaa ka mid ahaa in dadka Soomaalida ah in la midab soocayo sidaas darteed lacagaha loo jaray maadaama barnaamijkan dad Soomaali ah ay ku lug lahaayeen marka waxa ay tiri mas'uuliyiinta gobolka waxa ay ka baqayeen in lagu shaabadeeyo waa cunsuriyiin sidaas darteed ay lacagihii dib ugu soo fasaxeen marka waxay tiri gobolka isaga ayaa looga baahnaa in arintan uu wax ka qabto isla markaana anagu waxay tiri markasta oo xarun la furo waan u sheegayna waxaan dhahaynay xaruntaasi ayaa la furay adresskaasi ayay ka furan tahay isla markaana halkaasi ayay caruur ku qoodinaysaa iyaguna way approve gareynayeen marka hadda mas'uuliyiintii gobolka ayay dusha ka saaraysaa gaar ahaan wasaaradda waxbarashada oo lacagahaasi u soo fasaxaysay ururkeeda Feeding Our Future waxa sidoo kale la weydiiyay haweeneydan sanadkii 2019 3.4 milyan ayay ahayd lacagta aad qaadanayseen laakiin 2 sano kadib sanadkii 2021 waxay gaartay 200 milyan arintaasi miyaysan ahayn wax shaki keeni karay oo aad dhihi kartay arintan waxba jira oo musuqmaasuq ayaa jira marka inaad arintaasi wax ka qabataan marka waxay tiri anagu gobolka ayaan ku tiirsanayn markastaba isaga ayaa loo baahnaa haddii musuqmaasuq uu jiro in musuqmaasuqaasi uu wax ka qabto haddaba iyadoo arrimahaasi ka hadlaysay Amy Bag mar kale waxa ay tiri Nobody wants to be labeled as being racist. The notion that a state government is paralyzed and has to allow this level of fraud because they were afraid of what I might do in a lawsuit is preposterous. We relied on the state. We told the state, this site is going to operate at this address, this day, this time, and this number of children. The state would then tell us that's approved. They found minimal jewelry. I believe it was like 2 pair of earrings, a bracelet, a watch. There was some cash there. sidoo kale waxaa jirta dhamaadkii bishii December ee sanadkii hore in garsoore maxkamad federaal uu amar ku bixiyay hantida ay leedahay Amy Bag in lagu soo wareejiyo dowladda waxa kamid ahaa marka hantidaasi gaari Porsche ah oo iyadoo ay lahayd sawirkan la wadko ay ku sawirantay oo adkaysaan 60 laptop oo iyadoo ay lahayd iPadyo iPhone katiin sidoo kale diamond ah iyo sidoo kalena boorsada yar haweenku ay gacanta ku qaataan oo Louis Vuitton ah iyo sidoo kale waxyaabo kale ilaa 5 milyan ayaa lagu qiyaasay hantidaasi oo garsooruhu amar uu ku bixiyay in gacanta dawladda lagu soo wareejiyo arintaas sidoo kale waa ay ka hadashay waxa la yiri gurigaada lacag kaasha dahab waxyaabo la isku qurxiyo ayaa laga soo helay marka waxay tiri arintaasi wax aad u badan ma aysan ahayn hadda dawladdu waxa la leeyahay ilaa 75 milyan ayay lacagtaasi dib u soo celisay Amy Bagna xilliga la xukumayo sidoo kale wali lama sheegin oo xabsiga ayay ku jirtaa marka arintaasi hadii antaasi aan ka gudbo Amy Bag waxay leedahay dambiga mas'uuliyiinta gobolka ayaa iska lahaa anigu meel kasto la furo waan u sheegayay kadibna iyaguna way approve gareynayeen marka waxay leedahay dambigaasi mas'uuliyiinta gobolka ayaa dusha loo saaraya marka Trump waxa laga yaabaa haweeneydan hadii la xukumo inuu yiraahdo maamulka gobolka ayaa dambigan dusha ka saara uu cafiyo Trump dad fara badan oo dambi lagu helay ayaa uu cafiyay hadda intii uu isagu xukunka hayay dhinaca kale waxaa jirta waraaqo wasaaradda maaliyadda ee dawladda Mareykanku ay u qaybisay xawaaladaha gobolka Minnesota waa tii la yiri lacag ka badan 3,000 qofku hadii uu dirayo waxa laga rabaa meesha uu ka keenay lacagtaasi inuu cadeeyo marka waraaqahan oo Geographic Targeting Order GTO loo soo gaabiyo ayaa waxa loo qaybiyay xawaaladaha marka ilaa 5 qaybood ayay ka kooban yihiin qaybta koobaad waxa ku qoran in ay hay'adda kontrolsho sidoo kalena dambiyada dhinaca lacagaha ee FinCEN loo soo gaabiyo oo wasaaradda hoos timaada in maaliyadda ayaa dhaqdhaqaaqyadaasi la soconayso financial institutionska qayb ay buuxinayaan xawaaladuhu ayaa ku jirta qaybna dadka qofka aad u dirayso informationkiisa ayaad gelinaysaa qaybna adiga diraya ayaad informationkaada gelinaysaa marka qaybtan hore xawaaladda ayaa laga rabaa inay buuxiso lacagaha xilliga la diray iyo sidoo kalena xawaaladda magaceeda lacagtu intay la ekayd iyo sidoo kale wadanka ay ku socoto waa qaybta koobaad oo looga baahan yahay xawaaladda qaybta labaadna qofka senderka oo lacagta diraya ayaa buuxinaya magaciisa oo buuxo ayuu sheegaya
adresskiisa ayuu sheegayaa, wadada uu degan yahay, magaalada, stateka iyo weliba zip codekiisa, dhalashadiisa, telephone numberkiisa iyo email adresskiisa ayuu qoraya. inta badan horta waxyaabahaasi qofka markii horeba waa laga qori jiray. qofku marka koobaad uu xawaalada tago informationkiisa waa laga qoraa. laakiin hadda qaybtaas kale waxay tahay sidoo kale identificationka, qofkii inuu iscadeeyo dokumenti nuuco wata. marka arrintan waxaa loola dan leeyahay dadka wadanka sharci darada kusoo galay ayaa inta badan dowladdu waa titri wax lacaga ah ee ay dirayaan iyo canshuurta ay xareynayaan waxyaabahaasi oo idil waan la soconaynaa. marka ID-ga uu wato qofkaasi ma driver license ya, ma state ID ya, ma passport, ma waxyaabo kale ayaa sidoo kale la weydiinaya. halkee laga soo saaray ID-gaasi uu wato wadanka, sidoo kale ID numberkiisa iyo xilliga uu dhacayana sidoo kale waa la weydiinaya. marka qofka ka faa'iideysanaya marka in lacagtan waa qaybta saddexaad, qofka ka faa'iideysanaya oo lacagtan loo dirayo ayaa qaybtan sidoo kale lagu sheegaya. qofka aad u dirayso marka waxaa laga rabaa qofka lacagta aad u dirayso hadiiba Soomaaliya uu joogo waxaa laga rabaa adresskiisa hadiiba adres uu leeyahay. marka inta badan Soomaaliya waan ognahay gobol iyo magaalo ayaa lacagta lagu diraa, inta badan wada hebel iyo adres hebel ma jirto. sidaas darteed qofka aad u dirayso numberkiisana waa loo baahan yahay. relationshipka kala dhaxeeya, xiriirka kala dhaxeeya qofkan ma familigaada, ma fareena, ma ganacsiga ka dhaxeeya, ma waxyaabo kale idinka dhaxeeyana sidoo kale waa loo baahan yahay. qaybta afraad waa source, lacagta halkee ka keentay ayaa ku qoran. sidoo kalena qofkan waxaa laga rabaa lacagtaas halka ku keen, ma employment income shaqadiisa lacag ka soo gashay miya, ma qofkan savingkiisa lacag ugu dirtay miya, ma business oo qofkan oo lacag oo ugu shaqaysta oo business ma uga timid, government benefit miya, dawladdu waa tii soo jeesada lacagta dadka lacagaha ay dawladdu siiso lacaga ma diri karaan, waa tii ay dhahayso lacagahaasi waa inaysan wadanka ka bixin, ama wax kale ha hata lacagtaas waa inuu cadeeyo qofku. sidoo kalena sababta aad u dirayso inaad sheegto waa ma family support qoyskaada ku taageeraysaa, living expenses miya oo ma dadku ma ku noolaanayaan, qutul daruuri miya ka dhiganayaan, waxbarasho maad ku bixinaysaa, medical miya qof jiran maad u diraysaa, business miya ama oo qof ganacsi miyaad ku taageeraysaa ama wax kale. waxyaabahaasi oo idil ayaa laga rabaa. marka qaybta ugu dambayso sender certificationka waxay tahay waxaad cadaynaysaa marka lacagtan in aad adigu dirtay, waad saxiixaysaa, signature-kaada, magacaada ayaad ku qoraysaa, date-ka ayaadna ku qoraysaa. marka waxa laga rabaa marka in xawaaladuhu ay intaasi oo idilba qofka lacagta diraya ay sidoo kale ay sheegaan. marka arrintan dawladdu waxa ay dhaqan gelisay hadda bishan aynu ku jirno 13keedii waliba waxaa ku qoran in si rasmi ah ay arrintan u dhaqan gashay, ay u dhaqan galayso February 12keeda sanadka 2026 bisha soo socoto 12keeda ayay si rasmi ah u dhaqan galaysaa oo sharcigan dhaqan galaya dadka lacagta diraya reer Minnesota oo kaliya ku kooban tahay kulli xawaaladaha kale hadii ay jiraanna waan arki doonaa. marka sidoo kale waxa ay ku kooban tahay laba county oo Hennepin County oo Minneapolis ay ka tirsan tahay iyo Ramsey County waa meesha Soomaalidu ay ku badan tahay. marka waxay leeyihiin lacagtu haday 3,000 ka badan tahay qofku waa inuu foomkaasi buuxiyaa. xawaalada ayaa laga rabaa in foomkaasi ka buuxiso, foomkaasina sidoo kalena dawladda ayaa helaysa. marka wasaaradda maaliyadda amarkan waxay soo saartay 13kii bishan labadaasi county oo Minnesota ayuuna quseynaya. 12ka bisha February ee soo socota ayaa oo labaad ayuuna si rasmi ah u dhaqan galaya sharcigan in foomkaasi xawaaladuhu ay ka buuxiyaan dadka lacagaha diraya. marka sida muuqata hadda waxaan arkay xitaa Minnesota in airportka maalin dhawata lagu qabtay laba qof oo la leeyahay waxa ay wateen lacag 14,000 iyo jajab ah. qofku lacag 10,000 gaaraysa wadanka oo kaasha kala ma bixi karo, waa inuu cadeeyaa lacagtan bangiga kala soo baxay rasiidkiyaan wataa. laakiin haddii lagugu qabto waa sharci darro lacag 10,000 ka badan in adigoo waliba 10,000 inay gaarsiiso taloomba waa inay ka yar tahay 10,000. marka arrintaasina waa jirtaa. dadku dawladdu waxay la socotaa dhaqdhaqaaqa lacagaha wadanka ka baxaya. xawaaladuhu waa ay sameeyaan lacago ayaa Mareykan laga qaadaa, Dubai ayaa la geeyaa kaasha, laakiin waraaq ayaa jirta loo saxiixo qofkan lacagtaasi inuu sida la og yahay oo ereborada aan lagu qabanaynin. laakiin lacag kaasho fara badan aan wataa wadanka waa kala baxaya. arrintan lacagtaasi musuqmaasuq inay tahay ayaa sidoo kale loo arkaya. laakiin qofku lacag ka yar 10,000, 9,000 iyo 500 xitaa wuu qaadan karaa qofku. laakiin mararka qaar haddii lagu weydiiyo xitaa haddii bangigaada kala soo baxday waa inaad rasiidkii wataa oo tira lacagtan bangigan kala soo baxay waa tana ama Afrikaan u socdaa, waxaan doonayaa intaan joogo inaan isticmaalo, maadaama inta badan bangiyadu
ay ku yar yihiin meelaha qaar oo laga yaabo markaad lacag kala baxayso in lacag kale ay ku dul saarayaan lacagtaas aad la baxayso lacag lagugu jaaj garaynayo maadaama bangiyada halkan iyo kuwa xagga aysan islahayn marka arrintaasina waa jirtaa reer Minnesota oo aan rabay inaan idila socodsiiyo aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo